kusoo dhawaada L4 channel YouTube channel maanta waxaan baranaynaa sida Gmail loo sameeyo Gmailka markaad sameynaysaan marka aad laptopka isticmaalaysaan mobilka markaad isticmaalaysaan aad iyo aad bay ugu dhib yartahay taas mar dambe ayaan idin tusayaa laakiin sidaad u isticmaali lahaydeen markaad laptopka isticmaalaysaan ama aad browser isticmaalaysaan weeyaan therefore xagga ugu koreysa halkan imika aad arkaysaan ayaad gmail.com ku qoranaysaan imika oo toos baa aniga igu soo baxday gmail.com markaad ku qortaan ayaa boggan ayuu ku soo saarayaa xaggan marka email ba ku qoran haddii aad email hore leedahay ayada ayar ku qoranaysa haddaanad lahayn aad rabtid inaad samaysatid halkan waxaa kugu qoran create account okay halkan marka create account tirahdid marka wuxuu ku soo saarayaa account-ka ma adaa raba naftaada u rabtaa ma caruurtaada u rabtaa mise business inaad ku isticmaashad rabtaa therefore waxaad leedahay anaa raba myself kadib markuu sidan kugu soo saaro ayaa xaggan magacaaga hore ayaad ku qoraysaa kaba soo qaadan iska dhahna Soomaali then magacaaga aabbo ama magacaaga awoowo ayaad ku daraysaa marka Soomaali cabdi baan iska leeyahay marka Soomaali af Ingiriis marka qoray raalaxado cabdi kayno Soomaali cabdi baan ku qoray marka automatically wuxuu ku soo saarayaa account ay iyagu isleeyihiin waad ka dhigan kartaa tusaale ahaan imika s oo Soomaali u taagan yahay oo maxaa la dhahaa cabdi u taagneed oo imika uu ka dhigay iyo lambaradan uu raaciyay ayuu ku yiri kana ku soo baxay laakiin haddaad doontid adaa ku qoran karaa Soomaali cabdi then 19 iska leh okay then haddii uu imika tusaale ahaan haddaan Soomaali cabdi kaliya ku qori lahaa wuxuu ku soo saarayaa this username is taken account-kan waa la haystaa buu ku leeyahay laakiin haddii aad rabtid in aad hadduuna ku soo saarin imika tusaale ahaan 19 markaan ku qoro waxba kuma soo saaraya you can use letters buu ku leeyahay marka tan waxay ku cadaynaysaa inaan magacan Soomaali cabdi 19 ku qoran tahay in aanan la haysanin oo adigu ka dhigan kartid therefore kanaad ku daysanaysaa kadib passwordkaagana waa inay 8 lambar ama 8 eray ay ka koobnaadaan tusaale ahaan waad isku dhex dari kartaa iska dhigi kartaa cabdi kadibna 8 waxaad adigu isleedahay aad iyo aad baan u xasuusan karaa lambarkaagu buuxaad ka dhigan kartaa haddaad rabtid then halkan meeshan yare ishu inay ku qoran tahay la moodayo halkan yare isha la moodayo waxa weeyaan passwordka ayay ku tusaysaa passwordka aad qoratay ayay ku tusaysaa haddaad rabtid inaanad arkinna waad ka qaadi kartaa markay sidan tahay markaan passwordka laguma tusayo markaad taabatidna waa passwordkii buu ku tusayaa therefore waxa aad ku qortay marka ayaad arki kartaa weeyaan ma fahantin marka imika tusaale ahaan cabdi 8 ma ku qortay waa inaad halkan mar labaad ku celisaa isla sideeda marka 8 cabdi ayaan ka dhigtay passwordkayga xaggana Soomaali cabdi 19 baan ka dhigtay marka kan halkan aad arkaysaan imika magaca Soomaali cabdi 19 ay ku qoran tahay magaca weeyaan baa emailkaygu wuxuu noqon doono emailkaygu marka kaasuu noqonaya okay therefore marka markastaan rabo inaan galo ama aan isticmaalo gmailka waxaan ku qoran doonaa waxa weeyaan Soomaali cabdi 19 passwordkayguna noqonayo cabdi 8 ma fahanteen then halkan haddaad doontid waad ka qarsan kartaa inta passwordka lama arkayo waad aragtaan haddaad rabtid inaad aragtidna aanad ka shakisan tahay oo kale waxaad qortay ayar kana taabanaysaa aad leedahay passwordkayga i tus kadibna wuu ku tusayaa ayar marka halkan next-ga ayaa iska taabanaysaa next marka saa u taabatid marka account wuxuu kuu soo qorayaa lambarkaaga geli ayuu ku soo qoray lambarka aad gelinayso waa lambar aad adigu leedahay si haddii aad passwordka ilowdad rabtid inaad bedelatid oo ilowday ama aad ilowdidba gmailkaaga lambarkaaga intaad ku qortid baad ku save garaysan kartaa iyo hadhow haddii uu ka halaabo ama aad ilowdid aad ku xasuusan kartid okay marka lambarkaad doontid tusaale ahaan lambarkayga ayaan ku qorayaa 3 lambarkayga Ethiopianka ayaan ku qorayaa
si markii la iisoo diro account la iisoo diro on passwordkayga haddaan rabo inaan passwordka iska bedelo ama passwordkayga bedelo si aan ku helo halkan recovery emailna waxa weeyaan haddii uu ka halaabo lambarkuna kaa xidhmo passwordkana aad ilowdid email kale ood ku isticmaali kartid oo yani kuu soo diri kara passwordka kusoo diri kara ayaad xaggan gashanaysaa oo email ku doonu noqon karaa dhib ma laha laakiin waa inuu ahaadaa email aad isleedahay yani waan aamini karaayo markasta ayaan haddii uu iga halaabo recovery buu isoo saarayaa kadib waxaa ku xigta waxa weeyaan da'daada si loo ogaado bishii aad dhalatay maalinkii aad dhalatay iyo sanadkii aad dhalatay way ku qoran tahay tan iyada waxba ha ka walwalina waxaad doontaad kaga qoran kartaan waxa kaliya loo baahan yahay in sanadka aad ku qorteen halkan sanadka lagu qoray waa inay 20 sano ka weynaataa marka imka 1996 ayaan qortay haddana waxaa lagu jiraa 21 marka waxa weeyaan 25 sano marka waa inaad u fiirsataan lambarkaada halkaa gelisaan iyo sanadka markii la isla fiiriyo waa inay 18 ilaa iyo 20 sano u dhaxaysaa taasoo marka ku cadaynaysa inaad yani qaan gaadhay tan marka waxaad doontaa ku qortaa 99 97 96 86 waxaad da'daada kolba sanadkan dhalatay haddaan ilmo yahay imka weli yar dhalinyaro tahay oo weli 10 jira laakiin rabtid inaad account heshid waad iska gashan kartaa kan laakiin adigu gasho uun yani da'daada halkan markaad soo gashidna waa gender kana jinsigii weeyaan wuxuu ku sheegayo jinsiga marka waxaad dooran kartaa ama male ama female ama haddaad rabtid inaanad labadooda midna dooranin waa I would rather not say baad iska leedahay tusaale ahaan imika anigu male ayaan doortay kadib markaa ayar waxaa kaliya aad leedahay next wax kalood u baahan tahay malaha ayar bisaas kugu dhamaaday privacy and terms kan waxa weeyaan constructiga aad la gelaysay kaasoo ku cadaynaysa inaad iyaga sheeg security iyo waxaas inaad la heshiisay yani heshiis inaad la gashay oo constructiga la saxeexato kale ayay cadaynaysaa tanina okay kadib next ayaad leedahay kadib waa kana gmailkiis sidaas ayuu kuugu furmayaa bas waa kana halka saasuu igu dhamaaday aan ayar meeshaan doono waxaan doono aanu isticmaali karaa okay so hadda emailkaaga saasuu kuugu samaysmay haddaad halkan yaree asto ay ku qoran tahay imka aad taabatid wuxuu kuu soo saarayaa magacaagii aad ku qoratay iyo magaca gmailkaaga ama aad ku geli lahayd usernameka aad ku geli lahayd ayuu kana ku tusayaa okay bas marka ayar waxaad leedahay magacaygu waa ka gmailkayguna waa ka waxa kaliya lagaga baahan yahay inaad xasuusnaatid magaca okay Somali Cabdi anigu waxaan ku qortay weeyaan iminka account-ka aan idinku tusayo sida loo isticmaalo weeyaan Somali Cabdi 19@gmail.com passwordkayguna wuxuu ahaa ana xasuustaa weeyaan marka okay kadib ayar waxaad leedahay sidan ayuu kuugu dhamaadayba account-kaaga waad isticmaali kartaa hadda imika wuxuu ku leeyahay welcome Somali anu magacayga maadaama Somali ku qortay Soomaaliya soo dhawow kadibna wuxuu ku leeyahay si dhamaystira yani haddaad wax kale u baahan tahay okay kana wuxuu ku tusayaa sidii aad ugu soo bixi lahayd emailadaadii haddaad rabtid inaad sawirka imka xaggan saaran tahay sawirkaas haddaad rabtid inaad bedelatid halkan yar baad taabanaysaa kadibna sawirka ayaad ka bedelan kartaa laptopkaaga dhexdiisa ayaad ka bedelanaysaa haddaad rabtid gmail ayaad kusoo dirsanaysaa mobilkaaga si aad adoo laptopka iyo mobilkaba aad ugu isticmaali kartid gmailkaaga cashkeena maanta intaasuu noogu egyahay aad iyo aad baan ugu mahadsantihiin maadaama daawateen haddaad wax kale u baahan tihiinna commentiga igu soo qora maalin wacan ayaan idin leeyahay